waxaan idinka mahadcelinayaa waqtiga dheer ee adag ee nala qaadateen iyo xaaladda adag ee intii naasoo mas-uuliyiinii maanta aad isugu timaadeen waxaan idin leeyahay waxaad qabateen shaqo adag laakiin waxaan leeyahay laa shukra cala alwaajib waxay idin saaraabaad qabateen waan idinka mahadcelinayaa laakiin waa mid la isku wada leeyahay ku soo dhowaada dhulkiinnii iyo dadkiinnii oo idin sugayay cid waliba iyo munaasab kasta iyo magac kasta ay ku fadhido inta noo timid iyo kuwa naga maqanba iyo kuwa nagu fikirkaaba intaa haddaan ka gudbo dowlad goboleed Jubbaland waxay leedahay khudbaddii xilliga tartanka ayaan ku sheegay ujeeddada iyo danta iyo waxa aan anagu doonayno taasoo ahayd inaan mar walba ka shaqaynayno dib u heshiisiin isu tanaasul isku xidhnaan iyo wada shaqayn waa halhayska ay leedahay Jubbaland mar walbana mid ay iyadu u taagan tahay waxaan ballan qaaday inaan dhammaystirayno sistamka dowladnimo waxaan ognahay Soomaaliya sistamka dowladnimo ay qaadatay saddexda leeyara ee dowladda federaalka dowlad goboleedka iyo midda la dhisay kaunsilada ama dowladaha hoose ilaa heer degmo gaaraysa inaan dhammaystirno oo aan doonayno sida asxaabta qaarkeed ay ka hadlayeen inay noqoto xilligan waqtigiisa kale waxa laga hadlayo doorashooyin ka dhaca ilaa heer degmo oo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ay ku hawlan yihiin sida ay deegaanada uga dhisi lahayn maamuladaas oo qoriisu dhiib ku shaqayn doono haddii aynan kuwa deegaanada jooga xuquuqdooda helin ta dowladda goboleedkuna ayna helaynin ta dhaxana ayna helaynin ay noqonayso jaranjaro isku xidhan waa siyaasadda aan leenahay ee aan doonayo inaan xaqiijiyo sannadaha soo socda haddii ilaahay nala garab galo oo aan doonayno wejiga maanta aan ku jirno mid ka beddelan inaan gaari doono aanan codsanayo dadka reer Jubbaland inay nagu taageeraan nagu garab istaagaan idinkuna aad markhaati nooga noqotaan waxaa ka mida Jubbaland aasaaskeedii hore oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka cabdikariinna uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waan garanaynaa intii aan soo marray iyo borosayskii iyo sidii lagu dhisay iyo dhibkii aan kala soo kulannay waxaan uga mahadcelinayaa qaabka loo dhisay isteydyada iyo sida loo dhammaystiray dowlad goboleedyada iyo marxaladda la soo gaarsiiyey waxaa markaa aan xilligaa ku gaadhnay waxaad garanaysaan inay ahayd dib u heshiisiin dadkii oon isu keennay oo annagii iyo dowladdii jirtay xilligaa aan isla qaadannay 7 madaxweyne sheeganaysa iyo intaasoo isku calaamashatay iyo intaasoo la maray intii la isu tanaasulay in la isugu yimid oo la yidhi war Soomaali kugusan iyo walaala waxay ku dhaantay ma jirtee aan si walaalnimaha wax ku raadino maantana waxaan leeyahay way ka yar tahay tii hore tanaa ka fudud markaan Jubbaland dhisay midda maanta aan ku jiraa ka fudud waayo taasi waxay ahayd fikir kala duwan oo dad badan oo kala duwan ay ku hadaaqayeen laakiin tan abtir bay leedahay iyo sumadda ay leedahay waa dowladda federaalka iyadaa la rabaa inay xalkeeda keento saaxiibada aan isaynana iyo waxa xilfi la tahay inay keento intaan isu nimaadno aan gobol ku wada fadhiisanno oon isu nimaadno oo dib u heshiisiin iyo wada hadal wax walba lagu dhammeeyo waxaan horey u ballan qaaday dowladda federaalka inaanan diidanayn dhibaato aanan ku haynin wada hadal iyo isafgarad iyo isafgarasho iyo heshiis iyo isu tanaasul inay tahay waxa dowladnimada Soomaaliya ay ku waxaysan tahay haddii siyaasadda la fiiriyo qof waliba waxa uu rabo dantiisu ma u hirgelayso qof walbana rabitaankiisa ma aha dowladnimadu waa waxa isku keen wadi kara isu keen hayn kara ina wada midayn karaya middaa in laga wada shaqeeyo sidaa daraaddeed aabbaha iyo wiilka qofka waajibku uu saaran yahay waa aabbaha ee garanaya wiilkiisan waxa ka maqan iyo ubadkiisu waxay tirsanayaan waxaan leeyahay markaa khalad kasta oo dhaca dowladda federaalka iyo mansilada abbay taagan tahay iyadaa laga rabaa inay sixitaan tanaasul wada hadal isu dhimrin ay la timaado
waxyaalaha hadda dhaqamada qaarkood oo jirana waa waxaan Soomaaliya xal u ahayn oo calaacalku hadduu sii socdo uu sii xumaan karo waxaad garanaysaa burburkii dowladnimo ee Soomaaliya wixii sababay maanta qof kasta oo Soomaaliya joogay oo muddadii burburka joogay oo dhex joogay oo wixii waddanka ka dhacayay ogaa oo waxa uu sahlan ay tahay Cabdiraxmaan Shakuur laba kooxood oo magaalada kuwa joogay kuwa kale raashin isu weydiinayay oo marxaladaha aan garanayn aan la soo maray oo aan xamar garanayna waxay soo martay qof kasta oo jooga oo dibadda ku maqnayna waddanka joogay wuxuu ka daqanayaa tallaabo kasta oo qalooc yar uu galo sidaa daraaddeed waxaan leeyahay madaxda Soomaalida waan idin jecelahay waan idin soo dhaweynaynaa madaxda iyadii baa tihiin waan idin ixtiraamaynaa mas-uuliyaddiina aan idinku dhowraynaa laakiin garta haddaydaan idinku ogeyna dadka dib u weydiiya waddankani waxa uu soo maray taariikhdiisu waxay ahayd waxa ka iman karaya ciribteedu meesha tegi doonto xaaladda siyaasadda waxaa lagu jiraa xilli adag oo ay jirto kala qaybsanaan iyo hardan siyaasadeed oo weyn laakiin waxaa hubaala in Soomaalidu ay isku khasban tahay kala maarmaynin ishuraynin ismuwarta tahay oo meel ayna kala tagaynin marnaba waxaad arkaysaa ninkii ka hadlayay ee gobolka Wajeer countiga Wajeer xogeenka ka ah inuu Soomaali yahay yaftakhir uu ku faanaya inuu Soomaali yahay waxa uu qabo waxa la ahaa sida ay ahayd buu dareemayaa xageed u malaynaysaa inaan inteena kale u sii kala tagayn calankan hadda lagu heesayay xidigta shanta geesi ma jarmal baa inoo sameeyay 1954 marka laga hadlayo oo calanka muuna ahayn British Somaliland iyo koonfurta Talyaanigu gumaysan jiray ma ahayn fikir kale iyo xulum kale jiray xilligaas waxa dadku ay intaa u soo marayeen wax kala duwan oo badan bay ahayd aan ilaahna hadda khasaare kale lama sheegi karo intaan u qaxnay baan ku badbaadnay haddaan isla burbur lahayn ma ka sii daraan lahayd laakiin riyada xilliga halkaa joogtay maanta annaguna ma sii kala tagayno meel kalena uma soconno haddii dowlad Soomaaliyeed oo saldhigto oo wanaagsan la helana dadka Soomaaliyeed way isu buusayaano maanta ninka jigjiga joogiyo gaaris joogiyo qof waloo Soomaali ka Jabuuti jooga Soomaalinimadu waa wax uu ku faanayo danqayso markuu dibadda joogo Soomaali baa tahay Itoobiya ma tahay waa sumad aan bedeli karin sidaa daraaddeed waxaa maanta inala hormar oo inala gudbo inaan ilaalino waxa inaga dhaxeeyo ilaahay baa Soomaali inaga dhigay isku dhaqan isku af waxa isu yimaada qowmiyado kala duwan oo intaas af iyo intaas luqadooda laakiin waxaan u baahanahay hogaamin inaan helo alqiyaada raashida Soomaaliya maanta hogaamin bay u baahan tahay wax kale u baahan tahay ma jirto aan ku dadaalnaa in waqtiga adaga laga bixi doono Soomaaliduna ay xusuusan doonto maalin ay dhibta ay ku jirto iloobi doonto haddii Ilaahay waxaad ogaataan in waddankani dib u dhis badan u baahan yahay dowladnimo la yagleelo iyo waddankan in dib loo ururiyo inay tahay waxa maanta inoogu muhiimsan waxyaabaha u baahannahay in la sheego ama si degdeg wax looga qabto waxay tahay waxa koow bal in dowladnimadii Soomaaliya la ilaaliyo oo dowladii federaalka ahayd dowlad goboleedyadii siyaasiyiintii waxa ka dhaxeeya waa dastuurka in isagii laga shaqeeyo sidii la isugu midayn lahaa ee wax looga qaban lahaa haddii la helo waxaa la yidhaahdaa dadkan hadda boojiska iyo meelahan ka ugaarsada waxay yidhahdaan uurkoolli baa ugaarsata macnaheedu waa maxay matalan markay ugaadhi doontaan hadday laba qof iskhilaafto hal eray isku khilaafto oo meesha ugu fog ay joogaan dib baa loo soo noqonaya oo maxaa la leeyahay ugaadhana ma helin cadoona wuu ina gelayaa markaasa waxay dhahaan uurkoolli baa ugaarsata dad isku niyad fiican baa ugaarsada haddii la helo markaa uurkoolli niyad wanaagsan kii dowlad goboleedka ahaa kii siyaasiga hore ahaa kii xisbiga ahaa kii dowladda federaalka joogay aanu si niyad furnaano oo uurkoolli aanu noqonno waan ugaarsan karraa waddankeenna horumar buu gaari karaa wax walbaan samayn karraa markaan intaas samayno waxaan ka shaqayn karraa waxyaalo badanoo maanta ina hor yaalo ee marka hore aan muujinna niyad wanaag aan noqonna uurkoolli
maanta wax nagu kala maqan annaga iyo dowladda federaalka ma jirto waxaan ku mutaysanay intaasoo caqabadood oo dhacaya ma jirto waxaanu ku mutaysanay maanta in la yidhaahdo hooyada dhooley ka soo tegaysaay waa inay 2 saacadood iyo bar soo socoto 30 daqiiqo meeshay soo soconaysay meeshay $50 ka bixisayna $300 ay ka bixinayso oo wareegga intaa la egelayso ma jirto sabab keenaysa in dadka la xusuusiyo waxyaalo badan oo noocaas ah waxaa mas'uuliyadda iska leh dowladda dhexe wax kasta oo xal iyo walaag inay keeno waxaan diyaar u nahay oo u aqoonsanahay inay waalid noo yihiin inaan anagu u aqoonsanahay dowladnimo inaanu nahay xertoodii inaan nahay shaqaalahoodii inaan nahay gacan yarayaashoodii laakiin macnuhu muxuu yahay caaq inaan noqonno iyagaa sababi karaya ilmahaaga labada ilmood ee dhashay haddaad sidan iyo sidan kale tiraahdo adaa wax walba isaga dhigi karaya markaan intaa samayno yaa waxaan gaaraynaa markaa waxaan u baahanay waxaan aad ugu faraxsanahay in abaalmarinta Nobel Peace Prize la siiyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo maxay sababtu tahay Itoobiya iyo Eritrea waxay ahayn cadal caadi aad u adkay arrintooda inay isu yimaadaan oo xaaladooda la xalliyo oo la dejiyo waxaan aad ugu farxay noocaas intuu maanta ku xidhan yahay kii shalay shabaabka ka xidhay ee uu la dagaalamay maanta uu hortiisa ku xidhan yahay oo haddii kiis loo haystay intay maxkamadda la geeyo gobolka ay tiri waa lagu waayay dambigaas oo warqad la siiyey la siyaasadeeyo oo kiisaana intii lagu raadiyo la yidhaahdo haddaad sidan yeeli wada kanaad yeelaysaa oo kii shalay uu la dagaalamayo maanta uu u xidhan yahay amniga yaa ka shaqaynaya wacayo ruuxa amni ka shaqaynaya haddii loo raacayo shabaabka yuu noqonaya maalin walba waa la dagaalanaa dagaal baana waan isdilaa meel baan isla naalla ma wuxuu ugu xukumayaa isagu waddanka absolutely maya amniga waa inaan ka wada shaqayno markaasaan xorriyad iyo nolol u baxayna waa inaan doorashada 2020 ka shaqayno waan garanayaa aad baan ugu mahadcelinay madaxweyne anu lama soo shaqayn siyaasi hore maan ahayn qoladii labada shariif iyo ragga kaliya ku jiray farooliyo kuma jiro laakiin xilli dhow aan la soo qaybsaday madaxweyne xasan waxaan ugu mahadcelinayaa doorashadii 2016 markii lagu soo socday tiimkiisu oo ragga qaarka hadda aan sheegayn marxalado badan bay ka shaqaynayaan fikir badan baa la isla keenay wuxuu qaatay wax waliba ka qaloocsanaatay in doorasho dhacdo waxay noqotay intaan tashi isugu nimaadno waliba aan anagu ka aqlabiyad badan inuu yiraahdo sida aqlabiyada aad u qaadatay ma idin ku raacay oo ay keentay in la qaato nooca in isteediyada ay noqdaan meelaha doorashadu ay ka soo dhacayso oo intii la dhaadhiciyo halkaa la gaarsiiyo halkii oday laga tago mayna marnayn xilligaas wuu har fadhiyaa madaxweyne xasan sheekh waxaa laga shaqaynayay extension 2 sano oo baakayka oo baarlamaanku ay leeyihiin madaxweynuhu adigii annagu waan israacan madaxweyne xasan sheekh geesinimo muujiyay wuxuu leeyahay sharaf baan ku sharaftii baan ku tagayaa ama iyadaan ku soo noqonaya taasaan ku qaadanay waxaan maanta 2020 in doorasho dhacdo 2020 bilowgeeda waxay ku xiran tahay in hadda laga sii shaqeeyo ama la yiraahdo wartii 2016 baan qaadanaynaa ama la yiraahdo ma waan beekhaaminaynaa district baan gaarsiinaynaa ama la yiraahdo war odaygii aan idhaahno laakiin waa in talaabo la qaato inta in ka badan kiiska doorashadu waxyaalaha xasaasiga hadda dhibka keeni kara Soomaalidana wuxuu arkay in waliba damac ku jira muxuu yahay damac ku jira waxa weeye wallahi waa daa istaagtay waad helaysaa saarag badan oo ku tashanay oo laga yaabo qaarkood ra'iisul wasaare inay deedeeyeen oo qaarkood laga yaabo inay rajada ka qayb baan wali intuu soo sharxay nasiibkiisa uu ku helay lacala haddaan anaada Jubbaland ka tago hore u baxo inaan heli lahaa baa laga yaabo marka aan chance ka la balmeeyo dadka hala siiyo fursad ay leeyihiin inkasta aan hore aan u sheegay inaan meeshaan u socdo siyaasadda inaan ku sii jiraan aan rabay raalli ah dhamaystirka dastuurka in dastuurka la dhamaystirayo waa shay waajib laakiin waxaan oran lahaa war dastuurka la joojiyo faraqsigu ku jira dadkii lahaa ehelkii oo gacanta kuma jiraan odaygii jawaari ay rogrogi jiray xataa ma jiro ninkii Allah u naxariistay ahaa xoosh oo isaga laftiisu dhinac ka waday uu dhintay Allah u naxariisto
cid lagu ogyahay ma jirto maligi markaa sanatarada iyo xildhibaanada ku hawlan iyo wasaaradii anigu matalaadan ku lahaa kuma haysto sababtoo dowlad goboleedyada xubnaha ku lahaayeen ha laga wada tashada ee lama hayo waxay la tahay bariyahan waxaa soo baxay wax stop la yiraahdeen stop stop waxaanu leeyahay dastuurku intaa in ka badan ma xamili kara halkaa lagu joojiyo waxaa aad looga hadlaa dayn cafis waan soo dhowaynaynaa daynta in lanaga cafiyo oo shakhsi kastoo soomaaliya ilmaha yarka ee daynta lagu leeyahay ee uuna ogeyn wax galay aniga maanta axmed ahaan nin weyn baan ahay ilaa dowladdiio waxaan ahaa ardadii kuleejooyinka dowladda wax ku soo baratay cashuur lagu soo koriyey oo wax ku soo baratay daynta lagu leeyahay aad laygama dhaadhicin karaya haddaana dowladnimadiiyo buwaagta dib ugu noqon waxay tahay markaa daynta la cafiyayo waan rabnaa in la iska cafiyo laakiin waxaa ka horaysa war deeqda hadda aan qaadanayno iyo daynta la cafiyayo waxa laga helayo iyo canshuurtaan qaadanayno accountability ha leelo horta hala xisaabtamo oo waxaan aan ogaada waxaan ku leeyahay waxaad maqlaysaa 100 milyan baa qola bixisay intaasaa la bixiyey ما شهدنا مالك أهلي مالك كل عضينا ور الله ما هي وحبنا الله وردينتنا هلا نجعفيه حساب علينا على هذا تذكر هوصنا هذا تعالى وانا الله وسؤال من ماذا يود تلك أمة الصومالية بيلو وروريجا ملا بالشدو وأنا اسمه نقطة سياسية انتاس واتكون قربتان ما أنا أهم سقف أما قار إن جامدة والربان إنه وحشرانه waxaan la rabo waxay tahay wax guud oo anaga ila la wada jira oo aan wada baahanahay waxaan ku wada gaari karaa wada shaqaynta iyo isku dhawaashaha isku kalsoonida qolada la ilaa international community juhdi badan bay Soomaaliya galiyeen wax badan bay qabtay oo mahad celinayaan juhdiga galiyeen dhaqaalaha ku bixiyeen laakiin hal baan rabaa inaan wax yar ka hoos ilaado safiirada iyo beesha caalamka dadka batalay nin walba adiga CV-gaaga iyo intaan joogo wax mayna dhicina ka dhigin waxa dhabtay wadanka ka jira intaad ka hadashaan boolisiga wadanka iyo wanaagaad uga tagaysaan ka shaqeeya laakiin ha ka shaqeeynin Axmed Raalaha ka noqdo iyo Hebel Raalaha ka noqdo kana ka noqdo waxa laga shaqeynaya ha noqoto wax noocaas laakiin guud ahaan waa laga mahad celinaynaa waliba talaabooyinka ay qaadaan iyo maanta siday u jiraan iyo inay dareemaan wadanka dhibaato inay ka jirto aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay markaan asii Jubbaland nahay waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo maanta wanaag nagala shaqeynaysa oo diiwaangelin nagala shaqeynaysa oo canaan leenahay noo sheegaysa oo wax aan ku khaldanahay naga qabanaysa laakiin waxa inta badan Soomaali baan uga baahanahay beesha caalamka laakiin inta ay leedahay waa siinayna Amisom ولو مهد علي هرنا ولو مهد علي مهد علي تهذا وحي أصل واحد إن يدي جود إلى نفط وضوهرين وحان ربا إذا كأمسون إن تاريخ صوماليا وقتها ما إن يشوفان في سيد كوتشران وحيوبا أنت إن تجان وصوماليا وقتها وحفيعا وعيدا صوماليا ولسان أو هبايسان أو تبرر oo lagu wareejiyo laga tago laakiin haday noqoto ciidankii Soomaalidu inuu banaanka ku baabacsan yahay iyaguna ay tufaaxa iyo qaraha iyo limbabelmada dibadda loo kala lacagna la qaato macna badan ma sameynayso legacy aad ka tagaysaa ma wax dhibaysay ciidan Soomaaliyeed anagana nagu canaanta waliba si culayska aanu dareennay waardiyayaasha badan ee meelo badan saaran ee ilaalinaysaan intaad ka gudubtaan isku tashada dhahaa anoo idin mahad celinaya hadana hawsha laga shaqeeyo من لماذا شعب الصوماليين وحان ربائنا مر بعد مرسد عاد كعلي هل حوشي وانا مقدس مين لو يوريغانا مالا وحان باهن وحان لو باهن yahay in si tixgelin leh iyo dulqaadasho leh iyo isu tanaasul leh aan uga wada shaqeyno wax kasta oo umadeena isu geyn karay waxaan rabnaa inaan difaacano wax kasta oo qadiyadaha dalkeena iyo dadkeena ay wax ku noqon karaan aan gacmaha isqabsano si aan u guuleysano dalka Soomaaliya ayaa Allah idinku wada abuuray meel aan kala aadnana ma laha iska daa Soomaaliya darisyada kale leena waxa la yiraahdaa dariskaaga aad uma samaysatid Ilaahay baa ku sameeyay kuwa aan leenahay laftirkooda
yaa waxay tahay inaan u baahannahay inaan garanno deriska aan nahay waxay noo yihiin waxaan rabay inaan u mahadceliyo oo salaantana ku daro waftigii ballaarnaa ee Kenya inooga yimid ee uu hogaaminayay majority leaderka Aadan Barre Ducaale ee uu ku jiray Yuusuf Xaaji oo inta badan ahaa mas'uuliyiin oo aan oran karo waxay waqtigooda u soo bixiyeen wax badan u soo qaateen inaan nagala qayb galaan qolayska iyo waxa aan ku jiro oo idin cadeynay waxaan marar badan maqlayaa Jubbaland Kenya ku darsanaysaa iyo xagga u socotay waxyaalaha asaadiirta inta badan meelaha lagu riyoodo haltaa ka Soomaaliya kamida meel loogu ogol waxaan in badan ka hadlay oo mar laga hadlayo xuduudka Mandheera iyo xuduud laga wada hadlayo waxaan lahaa waraanta federal ba iska leh iyadoo hadda dhibka annaga uu nagu dhacayo yaa waxaan leenahay waa federal issue aniga madihi shaqadayda ma aha inaan Soomaali ku waxayna qaab u sameynayno iyaguna haltaa ka Soomaaliya looga socdaan wixii labada dawladood ka dhaxeeya wax iyaga ka dhaxeeya dawladaha ka wada hadlaya dariiqa ku wada hadlaya yaqaan taas mas'uuliyadeeda aniga ma waxaan ugu mahadcelinayaa wanaaga iyo ciidankooda waxay nala qabteen iyo kuwa kale aan soo nala joogay intaba arrimaha amniga horaan uga soo hadlay waxaan rabaa inaan ku gunaanado Jubbaland waxaan intiinaan ka ballan qaadaya hortiina inaan ka shaqeyno isu keenis iyo nabad saaxiibadayda maqan aan si kasta ku raadin karo ku keeno aan midayno oo dadkaas iyo waxay tabanayaan aan ka jawaabo laakiin tabashada Soomaalida inaad dhageysato in wada mooye waxa adag inaad mar walba jawaabtooda aad bixiso laakiin intaan dadaali karo waan dadaalayna idinkana saan shalay idinku sheegay qof kasta wax tabanaya anu macsuumay qof macsuumina ma jireen qof walba wuxuu tabanaya waxa la sheeganayo in laga wada shaqeeyo Soomaaliya meesha ku socoto waxay ila tahay dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo isafgarad baan ku baaqaynaa dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha saaxiibkay abshir oo hadda wakiilka guddoonka baarlamaanka waan idin baahannahay madaxdeedii baa tihiin aan isa saxna noo imaada waxaan ku kala khaldanay aan isweydiino inagoo cidina dhexdhexaadin aan isu nimaadno haddaad soo hagaagi weydaan waxba dhimale annaga idiin soo hagaagayne meeshaad rabtaan iyo ciddaad dan moodaan oo dhammaan isugu tegaynaa laakiin mar walba anugu waxaan ka jeclaa shay walba Soomaalinimada taasaanan qadarinaya oo soo dhaweynaya Jubbaland maanta waxay diyaar u tahay inay deegaanada maqan xoreysato midnimadeedana ilaaliso maamulkana dhaadhiciso dawladda federaalka ay la shaqeyso wixii khaldan la iska qabto gobasha Jubbaland taalana waa mid Soomaaliyeed u taala maalintii loo baahdo lagu wada hadli karaa gobol nabadeed baa taala waa lagu wada hadli karaa iska daa hadda in aniga iyo dawladda dhexdhexaadiye dawladda dhexe iyo khaladaadkeeda cidii wax ka tabanaysa iyo dadka ay wax ka tabanay inay dhexdhexaadiyaan xataa diyaado marka aad baad u mahadsantihiin aad baan idinka mahadcelinayaa wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh